waxaa maanta si weyn oo aad u qurux badan lagu soo dhaweeyay magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika sheekha weyn ee Soomaalida aad u jeceshahay ee Sheekh Muuse Cabdi halkaas oo maanta si weyn soo dhaafay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida iyo culimada diinka al-Sunna wal Jamaaca iyadoo sheekha lagu wado inuu akhriyo daruuso badan oo baahi weyn u qabaan Soomaalida ganacsiga xoogan ku haysta magaalada Cape Town dadkii ka qayb galay soo dhaweynta sheekha oo mikrafoon kala dhex marnay ayaa sheegay inay si weyn u sugayaan imaashaha sheekha isla markaana ay aad u faraxsan yihiin inay maanta la kulmaan muftiga weyn ee Soomaaliyeed الإسلام كمدرسة الشريعة الإسلام كي أساس كي محكمة دين هراء الصومالية يكترن جرتقاب كمية مقالة المقدشة ما أنت وحى فرحة وين إنه أننا وجوجنا وطن كسول أفريقيا قاسهان مقالة كيب تاون إيربورت كوين كيب تاون وأن كسو دويني شيخنا مكرم كأ معظم كأ مشرف كأ شيخ موسى عدي oo aan in badan ku taahaynay sugaynayna yani inuu noogu yimaado South Africa. Shukran for the coming of the Sheikh. He come all the way from Holland, the Somali Sheikh, to give to the Somali brothers an upliftment in the soul and the ruh tasawwuf. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maatinka sheekha oo aan rajaynayna inuu wax fara badan ka tari doono midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed aan rajaynayna inuu ku soo kordhin doono aqal iyo diin intaba wax fara badan oo noloshooda wax ka tara sheekhan oo Sheekh Muuse Cabdi oo maardi caalimka Soomaaliya aan dhahay korno mise caalimka ahlus sunna wal jamaa aan dhahay korno amrigiisa Allah noo dheereeyay oo noo yimaaday wadamka Yurub iyo meel fog nooga yimaaday ayaa maanta aeroboortka Cape Town aan ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta sheekhayna aan soo dhaweynay Sheekh Muuse Nuur Sheekh Muuse oo maanta ahbaabtiisii dhamaan ay soo dhaweynaysa halkan Cape Town International Airport ay ku soo dhaweeyeen insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay fursad noo siiyo sheekha inaan si fiican uga faa'iideysano imaashada Sheekh Muuse inta ka soo qayb gashay waa mahadsan tahay waxaan leenahay Sheekh Muuse Nuur Sheekh Muuse soo dhaweysay walkama ku leenahay insha Allah taala soo dhawaada Soomaaliyeed islaamka uu soo dhawaada sheekho yaani ma taqaanaa si haybad la ayaad u soo dhaweysana uga soo qayb gashan waana ku mahadsantiin Allah isu kayna amiin inta waxaan u soo baxay ahbaabta dhulkan joogtoon maqlay inaan soo salaamo soo ziyaartoon la soo baashaalon soo bartaan u umiday dhulkaas ayaanta aan tagtageynay marka ilaahayna wuxuu nagu leeyahay inaan ma taqaanaa ahbaabnimo isu xariirino si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay oo dalkan Koonfur Afrika ku imaado socdaal diimeed Sheekh Muuse Cabdi oo in badan ay sugayeen Soomaalida Koonfur Afrika kuwaas oo maanta boqolaal qof oo Soomaali ay ku soo dhaweeyeen garoonka caalamiga ee Cape Town International Airport halkaas oo Soomaalida ku salaameen Sheekh Muuse Cabdi oo la filayo in dhawaanahan oo duruus fara badan oo ka bilaabo magaalada Cape Town iyo guud ahaan dalka Koonfur Afrika Maxamed Muuse Nuur Deeq Darajo Universal TV South Africa